السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. ميل والبواد جوجتان ومدى مسلمين توحيد الله يا عيد ونكسن عيد العافية. هلك إيجادا ونسان وجنة الكيكة قلبي وناق وفيشيال. أنا قلنا مقعي قدر قالي اسكسو النقد ونكسن واكل الراجنة وياها كليب سو مضوبين marka maanta kilib ay idin wada ciidina waa idin wada waxa idin leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda ilaahay cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suuban hanagu gaarsiiyo iyo wadankeena nabad ah oo dawlad caadil ah noo helay marka kale waxa idin leeyahay kullu caam wa antum bikhair. galabta waxa idin wada sheeko ma idin wada qisse ah oo dhab ah oo ka dhacday xaafadda aan deganahay xaafad dariskeyga ah. marka intaana sheekada idin gelin waxaan idinka codsanayaa biliis haddaad igu cusub tahay channelka aad ku cusub tahay oo videogan oo ku soo gaaro hore aadan iila joogin biliis channelka rukumo subscribe saaro gambalaalkana furo si wax walba aan soo geliyo ee kuugu soo dhacaan. haddaad hore iila joogtan waxaa idin leeyahay soo dhawaada tiim qalbi wanaag ayaa ka tirsan tihiin mar walbaba sharaf iyo ciise ayaan idin hayaa. guriga dhexdiisa ayay ka shidan tahay guriga dhexdiisana idinka soo leeyahay ciid wanaagsan asxaabteyda qaaliga ah. sheekada ayaan gudaha u galaynaa. sheekada waxay u dhacday sida tan. gabar ayaa waxaa lagu qabay guriga xaafadeena degan tahay daris ayaan nahay bis marka daris ayaana gabadha maamada waxaa la jooga marka gabar ay eedo u tahay ayaa la joogto. gabadha waa u adeegtaa gurigay ka tirsan tahay bis ayadoo weyn oo marka inanay gabadha reerka ku soo biirtay ay u timid maasha Allah gabar iska qurxoon way tahay. maamadii gabadhii ninkii maamada qabay iyo gabadhii la xiriir hoose leh ka dhaxeeyno. marka maamadii waxay sameysay gabadhi museegi oo odayga gabadha maamada qabay eedada wuxuu leeyahay telefoon u soo diraa markuu shaqada ka soo baxo gaariga wataa meelaha xaafadda ereyadeeda soo istaagaya wuxuu leeyahay haye soo deg hiblaayo soo deg meel hiblaayaan taaganahay iyo imo haye waxay leedahay eeda miyaha waxaan meelahan soo jiireenaya meelahan soo wareegaya marka saas uu ogow hooshi markay inta kala dhamayso gurigana shaqaalaha joogto antiya joogto ilmaha ay markay cashada la kala siiyay seexdo eed waa soo noqonaya haye eed macaan way dege abu heeloogi adeerkeed ahaayo eedada qabay meelahan ugu tagay waa la wada magaalada la soo baashaala casha magaalada laga soo cunaa uu soo wareejinaa kisteedo jeebka shopping ka dhiguu leeyahay gabadhi soo jiidasho ku sameeyay wuu sirsirtay muddo markay sida guriga loo soo celinaa guriga ayada soo noqonaysa ayada markay cabaar wax yar ay joogto asaga imaanay haddana maamada ma fahmaysa marka muddo sidii loo ahay oo loo dagaay oo la isku balansanaay oo banaanada loogu balansanaay oo gaari meelaha u soo istaajinaay oo casho u geynay muddo kadib waaba kana inay isguursadaan ku heshiiyeen adduunkan waxaa la arkeen ma lahaday ilaahay amarkiis eedada nin qabo see hawa kaaga gale adise ninoo gabar eedada qabto oo gurigaaga joogto see damac kaaga gala xakuya nin inaan ragow aamin ma gasheen yaa gabarna ma marka qaar gabdhaha shisheeyaha ma la iska ilaaliyaa oo saaxiibka iyo gabdhaha shisheeyaha ah mase gurigaaga iyo familkaaga iska ilaalinaya adduun ma jiro wallaahi billaah adduun ma jiro adduun gabagabahan joognaa ilaahay amarkiis calaa kulli xaal warkayaana idinku badinayna gabadhii iyo museegii inay isguursadaan ay ku heshiiyeen waa la isguursaday shoppingkeedu hoose u siiyey gurigoo magaalada geeskeeda uga kireeyey alaabteedu tartiib loogu gaday kabacdi waxayba maqlay gabadhi waxay bilowda markay say guriga uga tagtay rabtaa moogta gafurtaag iyo dabeecado aan lagu aqoonin iyo waxdalla aan lagu aqoonin iyo afcelis iyo barnaamijyo kale oo lagu aqoonin la imaatay waa la yaabay maalintii dambe buuqaya bata gabadha iyo maamadu waa isfahmi waayeenba dhibka marka waxa uu ka taagan yahay waa gabadha because nin meel cadda meel ka mid oo say guri uga tagtay rabtaa marsiyo
maamada iyo gabadha waa isku qariyaan mar walbeeto way ku afcelisaa waa ku afcelisaa maalintii dambe waxaa tiri raalli ahaada haddee kaamirada xoogaa ee waxaysan tahay gacantan ku hayaa marka saas igu qaata idin leeyahay calaa kulli xaal gabadhii waa ka tagta guriga iyadoo isxanaajinayso wanaag aan uga tegin guriga ka tagta maalmo kadib gabadhi markii la waa oo la raadi abuheelo waa ogyahay ma sheegaya gabadhi meela jirto gabadhi guriga waa ka tagta lee waxaa soo baxaysaba xaafadii isla kacda war hiblaayo ninkeedii gabadheedu eedaa guursatay dumar waa taqaanaa hiblaayo ninkeeda gabadh eedadu eedaa guursatay way yaabtay haddiiba warkii loo sii tixi raacaba waaba run gabadhi faabaheeda ogaaday oo maamada la dhashay wuxuu dhahay hiblaayoy waa dhacda sheekadii gabadhiina maxaan sameynaa eedadu waxay soo istaagtay maya abarteeda ka tag inaan balayla qabinba gabadhayda iyo aniga laysku meel ku jiraan dabcan diinta sharcigana ma ogiba eedada inay furmayso iyo in kaleeto calaa kulli xaal gabadhi sidii reerkeeda ku dhaqanoosaa eedadii sidii lagu furay marka dumaro eedadiio 10 cunug ugu yaraan haddaysan ka badneen way gaaraysaa ilmaha ay u haysa ninkan gabadhiina waakaas hadda waa aroos marka sheekadaasa waxaan ku dhaha idinka dabageynayay xan fireesh ah dumarow is ogaada hoostiina laga dhalana hoostiina dumarka la qabo is ogaada nin aamin ma galo naagna aamin maba gasha naagna wallaahi waaba iska masaakiin gabdhahan yaryarka ee masaakiin waay ya nin waa libaax because dhibka jiro gabadhan ninka hadduusan asaga ku dayi lahayn uusan sirsira lahayn uusan u shoobin garay lahayn uusan damac ka geli lahayn oo wax ka dhaadhacsiin lahayn waa iska ciyaal moogtahay maba haweysateenba dabca laakiin kulla fidna cinda gel waa nimanka dumarka la qabo waxaan idin leeyahay nimankiina ogaada xaaladiina ogaada haddii awal dumarka banaanka jiro iyo saaxiib la iska ogaa jiray hoostiina laga dhasha hoostiina familkiina ka shidan tahay ma fahanteen saas waa marka xantaasa idinka dabageynaya fiidiyogan haddaa ka hesha like saar shiina shargaray asxaabtaada la wadaag commenti qurxoonna ii raabiliis waa ii dhiiragelin mar kale janalka haddaa ku cusubtaa ii subscribe wallaahi meeshan ku yaabaanba fadhiyahaan dhaane xaafadda saasay u qasantaa ilaahu ceebteena astur iyo ceeb muslim ilaahu ceebteena astur haddaa maqashaa la yidhi ceeb ma asturno aa maqli jira yaa laakiin hadda familki ay ka shidan tahay dumarow isku badnaada ninna wax la aamina ma aha naagna wax la aamina ma aha wax la soo dhaweysta ma aha reerkiina ka adkaada dumarow mugo animaa yaabay qiso xanuun badan waa wallaahi gabadhi walaalkaa dhala ninkaa kaa guursataa innaa lillahi wa innaa ilayhi raajicuun wallahi dumarka ma xishoodaan ragna maba xishoodan yaa gabar walaalkaa kuu dhalay oo aad eedo u tahay ninkaaga damaca ka galo wallaahi waa qiso xanuun badan yaa la aaminaa marka yaa la soo dhaweysanaa marka yaa bismillaahi raxmaani raxiim wallaahi waa la yaa la aaminaa yaa la soo dhaweysanaa ma saaxiibaa la iska jiraa ma kuwa banaanka jiraa la iska ilaaliyaa hoostaadiyaaba laga dhashaba nina lama ilaali karo laba qofoo israbtana abadan lama ilaali karo mana la kala celi karo wallaahi billaah waa wax lala yaaba idin dhah masaakiintaasna ilmaheeda ilaahay hala koriyo ilaahayna ha u boogadhayo adinkana waxaa idin leeyahay fideogan sii shargareeya like commentina ii saara insha allah waa ku mahadsan tahay daawashada fideogan qalbi wanaag official ada iga daawanaysaan magaceyguna waa Qadar Qaali biliis sii shargareey la wadaag asxaabtaada si dumar badan ugu tusaale qaataan oo u ogaadaan xaaladahooga
naag walboo la qabooy reerkaaga ogow ninkana ha isa siin nin waxaa la yidhi gacalkaa maaha laakiin gacala ilaahay kaa siiyaa nin gacalkaaga maaha laakiin gacala alla kaa siiyaa marka dumarow isku badnaada ayaa idin leeyahay ciid wanaagsan mar kale kullu caam wa antum biqeer salaamullaahi calaykum